السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan wararka shacabka YouTube-ka aniguna waa Abduqaadir Xasan Aduuliya. maanta muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa guryaha iyo sida lagu helo wadanka Jarmalka. si aad guri u heshid waxaad maraysaa 3 shardi midkood. saddexdaas haddaad midkood aad martid waxa laga yaabaa in aad guri heshid waana fursada kali ah ee aad guri ku heli kartid. muuqaalkan ayaan kuugu qaadaa dhigi doonaa. haddaba inta aan muuqaalka u guda gelin waxay ka xasuusinaa inaad qaybta hoose ee YouTube-ka subscribe inoo saartid haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee barnaamijka shacabka YouTube aad soo booqatid. sidoo kale laagta muuqaalka inoo saar. waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa halkan asxaabta ku taxan barnaamijka shacabka YouTube-ka. waxaan sameyn doonaa 2 muuqaal oo aan ugu talagalay si faahfaahsan dadka Soomaaliyeed ee wadanka Jarmalka degan sidii markaa ay guriyo ku raadsan lahaayeen oo ay guriyo ku heli lahaayeen. labadan muuqaal ayaan markaas waqti badan ku bixin doonaa si qof walba oo daawan doono muuqaalkan oo markaas guri raadinayo oo markaas degan wadanka Jarmalka uu u fahmo. haddaba muuqaalkan hore waxaan ku eegi doonaa oo aan uga hadli doonaa 3 shardi oo qofku uu mari doono 2 kamid ah. midka kalena waxaan markaas uga hadli doonaa muuqaalka xiga. shardiga koowaad waa in aad shirkadaha ku yaala magaaladaada aad iska diiwaan gelisaa ee qaabilsan guryaha. shirkadahan ayaa markaas iska diiwaan gelinaysaa. shirkadda waad u tagaysaa xafiiskeeda kadib anmeldung ama registration ayaad sameynaysaa. marka iska registeraysid shirkadaas waxaa laga yaabaa in ay ku dhahdo waxaad inoo timaadaa bishiiba mar ama isbuuciiba mar noomow ama annaga information kusoo siinayno oo haddii aan guri helno waxaan kuu samayn doonaa waxaan kuu soo diri doonaa posto ama email ama waxaa laga yaabaa inay ku dhahdo na soo wac oo nala soo xiriir marka haddii uu guri bannaan yahay iyo haddii kale waan kuu sheegaynaa. haddaba waxaa samaysaa in aad markaasi iska registeraysid shirkadaha ku yaala magaaladaada dhammaantood iska register. 1 ama 2 maya. shirkad walba oo ku taala magaaladaada oo guryaha bixiya iska register. muuqaalka dambe ayaa markaasi kugu tusi doonaa shirkadaha guryaha leh iyo markaasi shirkadaha ugu waaweyn ee wadanka Jarmalka badanaa guryaha laga helo ayaan kugu tusi doonaa. laakiin tan waxaan kugu sheegayaa waxa taa shirkad walba oo magaaladaada ku taala iska register. waxa samaysaa isbuuc walba mar ama 2 mar u tag ama wac oo weydii in uu guri ka bannaan yahay iyo in kale. waa ku muhiim haddii ay ku dhahan ayagu xilligaasna soo wac ha ka yeelin. waxa samaysaa haddii ay kula ballamaan oo ku dhahan tusaale kale waxa laga yaabaa maanta markaad u tagtid oo kale inay ku dhahan isbuuca dambana soo wac ama bisha dambana soo wac may. waxa samaysaa haba wicinba u tag caadi u tag haddii aanan markaasi loo tagi karinna mar walba la hadal isbuuci 2 mar ama 1 mar ugu yaraan 1 mar ugu badnaan 2 mar waa inaad u tagtaa. hana fariisan haddii aad mar guri doonayso shaqo adag ayaa ku taala intaad guri ka helaysidna waxa laga rabaa inaad urud. qodobkaas waxa uu ahaa waa qodobkii koowaad. qodobka labaad ayaan guda galayaa. haddaba qodobka labaad laftirkiisa uu dheer yahay. qodobka saddexaadna waxaan kaligiis ka soo sameyn doonaa muuqaal gaar ah. marka qodobka labaad uu dheer yahay. qodobka labaad waa inaad ishtaadka ama magaaladaada dawladda qaybta Raadhouse-ka degan aad guri u doonataa. marka guryaha ay ishtaadku bixiyaan dad badan way og yihiin dad badanna ma oga laakiin waxa kuu sheegayaa in ay dawladda laftirkeeda guryo bixiso. haddaba guryaha ay dawladda bixiso ayaa kala duwan. midka koowaad waa guryaha kaamamka ah. tusaale kale haddii aad kaam degan tahay oo aad sharci haysan ama aad sharci haysatid laakiin guri kaama aad ku nooshahay oo gurigaaga ay dhibaato aad kala kulantid oo kale ama guriga biyo ay soo galeen oo kale ama dab uu ka kacay oo kale ama uu xun yahay ama nadaafad ahaan uu san fiicnayn oo kale guryaha marka qaybta Raadhouse-ka ayaa tagi kartaa. qol kale oo wanaagsan oo fiican ayaa lagu geenayaa ama 2 qol waxay noqoto adinka iyo inta qof aatiin ayay ku xiran tahay. sidoo kale waxaa jirta guryaha deegaanka caadiga ah ayaa jira. marka guryo ay leedahay ishtaadka ayaa jira oo deegaan ah waxa loogu talagalay familada caadiga ayaa loogu talagalay. guryaha marka deegaanka ayaga marka si kala baxa laakiin badanaa guryaha deegaanka waxa badanaa la siiyaa dadka shaqeeya. dadka aan shaqeyn laftirkooda waa la siiyaa laakiin dadka shaqeeya laftirkoodana waa la siiyaa. qofka wuu shaqeynayaa qofka markuu uu shaqeeyo waxa laga yaabaa noloshiisa macnaha familka guriga kiradiisa waxyaabahaas oo dhan lacag ku filan inuusan qofku helin. marka guriga marka waxa la sameeyaa waxay tahay maadaama uu qofkan caawinaad fiican ama lacag badan aysan soo galin dawladana caawinaad fiican aysan siinayn
waxaa la siinayaa warqad la yiraahdo warqadan halkan aan soo saaray waxaa la yiraahdaa von Berichtigungsschein ayaa la yiraahdaa von Berichtigungsschein warqadaas macnaha qofku wuu xareystaa oo raadka laga xareystaa qofka markii uu shaqeeyo warqadihiisa lacagta soo gasho dhan uu geenayaa way fiirinayaan warqadaas ayay siinayaan marka warqadaas waxaa loogu talagalay qofka aan noloshiisa sida tooska aan ugu filnayn oo lacag badan aysan soo galin marka waxa jira marka guriyo internetka la soo galiyo ama caadi loo helo oo ay qasab tahay warqadaas inaad haysatid marka guriyaas waxay ka dhigan tahay lacagtooda ma badna lacag aad u badan ma aan sida guriyaha kale lacagtooda qaaliga ama marka warqadaas haddaad wadatid oo kale guriyahaas waxa la leeyahay waxa laga kireenayo qofkii warqadaas kaliya wata laakiin qofka hadduu soo warqadaas von Berichtigungsschein uusan wadan lagama kireenayo sidaas oo kale kugu anfacaysa warqadaas soo qaadanaysa guriyaha waraasanaysa guriyaha dhan ma aha waa guriyaha qaar haddii aad marka warqadaas haysatid oo u geysanaysa oo gurigaas qasabta warqadaas inaad haysatid waliga kireenaya laftirkeeda waxaa jira dawladda laftirkeeda guriyo ay leedahay ayaa jira guriyaha dawladda marka aad ayay raqiis u yihiin marka haddii aad marka aad u tagtid ishtaadka oo aad shaqaysid ama aad shaqaynin u raaso ishtaadka tag qaybta guriyaha tag waxaad leedahay guri ayaan u baahanahay ku dheh hal mid marka ogow haddii aad mar guri raadsanaysid ha fariisan dhibaato badan ayaa laga maraa guriyaha raadintooda dad baa 2 sano oo complete maalin walba guri raadinaya sababtoo ah qofkan haddii uu shaqeeyo waxa uu mar walba cadeynaya waxay tahay qof shaqeeya inuu yahay wuxuu leeyahay aniga waa shaqeeyaa sidaas inuu guri sida ugu dhaqsiyaha badan ama si fudud u ka helo waa laga yaabaa laakiin adiga haddaad shaqeynin oo kale dhibaato weyn ayaa kala kulmaysa shirkado badan oo marka dadka aanan shaqeynin guriyo aanan saynin way jiraan shirkado waxa jira badanaa diida dadka aanan shaqeyn oo aanan guriyo saynin muuqaalka xiga waxaan uga hadli doonaa waxay tahay meelaha guriyaha laga helo ababka guriyaha laga hela ee internetka meelaha guriyaha laga helo sida markaas loola xiriiro sida marka emailka loogu qorto emailka aad u qorayso noocuu yahay ayaan marka ku soo qori doonaa waxaan ka rabaa marka waxay tahay stepkaas inaad raacdid oo qaabka emailka aan u qorayo aad samaysid si marka si fudud aad guri u heshid badanaa guriyaha meelaha laga helo xooga ah oo aadka looga helo waxa kamid ah internetka waa sababta aan ugu talagalay muuqaalka xiga inaan arrinkaas kaliya aan uga hadlo aan ugu talagalay sababtoo waqti badan buu qaadanaya inta warqada la qoraayo inta marka guriyaha aan raadinayo oo internetka aan ka raadinayo waqti bay qaadanaysaa marka hadaba muuqaalka xiga la soco muuqaalkan wax waay hadii aad daawatid asxaabtaada la wadaag guri raadinaysay si marka muuqaalkan iyo muuqaalka xiga ay u daawadaan insha Allah waan rajeynayaa inaan guri heshiin intaan muuqaal kale aan ku kulmi doono waxa idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo